aqalka dawladda hoose xalay waxa buuxdhaafiyay dhalinyaro aad u fara badan iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda Soomaaliya. waxaan dhamaanteen ognahay in dhalinyaradeenna ay fahansan yihiin ama shacabkeena guud ahaan ay fahansan yihiin waa awood waxtar leh. dhalinyaradeenna waxay runtii leeyihiin energy oo looga faa'iideysan karo si loo helo nabad iyo nolol kaamil ah. Gundhiga munaasabadda ayaa ahayd xuska maalinta 15 May oo ah maalintii la aasaasay dhalinyaradii SWL ee keentay madaxbannaanida Soomaaliya sanadii 1943 oo hadda laga joogo 74 sano. waxaa la qaaday suugaan ka hadlaysa kaalinta dhalinyarada iyo halgankii oo soo maray wadanka Soomaaliya. abaabulka iyo muujinta in dadka la dareensiiyo awoodda dhalinyarada Soomaaliyeed waxa sameeyay wasiirka dhalinyarada isboortiga Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye. wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga markay aragtay filiqsanaantaas baaxadda weyn leh ee dhalinyarada Soomaaliyeed ururadooda madaxa bannaan iyo daladahooda iyo dhammaan dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa loo aasaasay siyaasado qaran oo lagu horumarinayo dhalinyarada iyo isboortiga labadaba maadaama ay muhiimad gaar ah u lahaayeen waxaa ku cad siyaasadaas qaran wax allaale wixii qorshe ah. Ra'iisul Ku-xigeenka Soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka golaha wasiirada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana xafladda goobjoog ka ahaa. Ra'iisul Ku-xigeenka ayaa dhankiisa sheegay in haddii Soomaaliya aysan ku cilahayn dhalinyaro Soomaaliyeed aysan hesheen xornimada maanta la haysto loona baahan yahay in halgankii halkiisi laga sii wado isla markaana laga faa'iideysto xoogga dhalinta Soomaaliyeed. 74 sano dhalinyaradii Soomaaliyeed ee kacday waa ogtihiin waxaynu maanta la halgamaynaa fikir ciriirsan aragti qaldan faham qariban oo loogu gabanayo diinta Islaamka iyadoo dhiigii iyo sharafkii dadka Soomaaliyeed la daadinayo. taas gurmadkeeda ka hortageeda ka dhiidhigeeda u sarakaceedu waxa uu la gudboon yahay kulligeen u yaala gaar ahaan u sii yaala dhalinyarada oo ah xuduudda difaaca qaranka Soomaaliyeed. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dawladdiisu ay ka shaqeyn doonto nabadeynta dalka baraarujinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo inay ka faa'iideysto maskaxda ku jirta dhalinyarada Soomaaliyeed isagoona ugu baaqay bulshada in ay ka digtoonaadaan isla markaana ay meel iska dhigaan waxa la yiraahdo qabiilka kaasi oo madaxweynuhu tilmaamay inuu naafeeyay qarannimada iyo dalka Soomaaliya. waxaan idin sheegayaa dhalinyaro fadhiga laga kaco waqtigii waa la joogaa annaga ugu horreeyno oo dawladda idin fadhino oo rabno inaan idin power gareeyno inaan idin xoojino oo awoodiina idin sheegno oo aan gacan idinku siino wadankan inaa hanataan mustaqbalka ma ahayn maantada aan joogno. waxaa kaloo muhiim ah dawladdan anigu aan madaxweyne ka ahay iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan nala kala dhexgelin in aan noqono ul iyo diirkeeda aan noqono. Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Muqdisho.